Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaynu wax ka odhan doonaa Soomaalidu islaamka hortii wax ma caabudi jireen mise waxay ahaayeen cawaan cid iyo ciirsi ay isugu mid yihiin. Soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa xoolahaagu ama xeradaada ha ku jiraan ama xera kaaga maqnaadaan. Taariikhdeenuna ama saab hay noogu jirto ama sabab hay nagaga maqnaato. waxaase markhaati madoon noqotay oo caddaatay in Soomaalidu ay yihiin dadka ugu faca weyn uguna taariikhda dheer kuna horreeyay dhanka ganacsiga Afrika oo dhamina ka dambeey jirtay hodantinimo ku caan ahaa dagaalyahano aan waaban ay ka soo jeedeen balse taariikhdoodii dhulka lala simay si ay jiilkooda dambe u indhabeelaan dhaayahooda waxay arkaanna ugu qancaan. waa si aanay u garan yaa cadow u ah yaa se u ciidan ah yaa neceb yaa se raba. waxaa la gaadhay heer ay muran inaga geliyaan ciddaynu nahay iyo halka aynu ku abtirsanno balse ma qarsoomi doonto. marka la eego Soomaalidii hore iyo waxay caabudi jireen waxa ka mid ah diin la oran jiray waaq. waxa la sheegaa inay diintaasi ahayd diintii Nebi Ibraahim oo cadceed soo baxday saca ma qarin karo maadaama aynu ka mid nahay kana mid ahaan doono dhasha Ibraahim. waaq waxa uu ahaa ilaah ay caabudaan aanay aaminsan yihiin inuu yahay ilaaha cirka iyo dhulkaba maamula. waxay aaminsanaayeen inuu ilaahaasi yahay ka maamula cirka iyo dhulka. waxaad ka dhex arki kartaa afka Soomaaliga magaca waaq oo ku jira sida garwaaqsi ama caabud waaq ama ceel waaq ama waaq dhambala oo bulaxaar ku yaala. waxa xusid mudan inay dhammaantood saylac u dhow yihiin. saylacna ay ahayd halkii xarunta u ahayd Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam oo uu ku dhalay kula tafiirmay masaajidka labada qiblo lehna uu isagu dhisay kaana uu joogi jiray. sidoo kale islaamaha oo ciyaalka ku habaaraya ayaad arkaysaa waaq lagaasi ama dhagax waaq kugu dhac. sidoo kale ereyga waqooyi isna waxaa lala xidhiidhiyaa waaq waxaana la tabiyaa in diintaasi soo dhowaatay deegaanada Soomaalidana qaar ka mid ah ay dhiigga lo'da cabbi jireen. waxaa kaloo diimaha ka mid ahaa saarka oo waxaa badanaa adeegsan jiray dumarka oo dhabarka laga garaaci jiray si gaar ahna looga garaaci jiray oo la yaqaano soo jireenna ah. waana dareemi kartaa inay ahayd waxay dadku aaminsanaayeen. waxaa kaloo ka mid ahaa waxay u bixiyeen una yaqaaneen booxaanta ayaanka. waxaa la tibaaxaa inay aaminsanaayeen in ilaaha cirka iyo dhulka ee waaq uu ku maamulo wax loo yaqaano ayaan. sida ayaamuhu way kala duwan yihiin, ayaanna waxbuu xumeeyaa ayaanna waxbuu hagaajiyaa. erayada aan ku yidhi dib u dhuux mar labaadna ku noqo macnaha ku jirana isku day inaad fahanto. waxaana jiray laba ayaan, ayaanka weyn iyo ayaanka yar. waana meesha ereyga ayaan darro ama ayaan darro kugu dhacday la isku habaaro. waxaa kale oo ka mid ahaa qori la oran jiray wegir. qoriga waxaa badanaa adeegsan jiray dumarka umulaha ah oo hoosta gashan jiray ama ilmaha yar barkintiisa ayay hoos gelin jireen waxaanay ka aaminsanaayeen inuu yahay xirsi xidh. sidoo kale waxay u adeegsan jireen dagaalada labada qof u dhexeeya. waxaa kaloo ka mid ahaa masiixiga waxaana la tibaaxaa inay ku jirtay dhanka Soomaalida waqooyi bari. waxaana la sheegaa inay kaga timi jasiiradda Soqorda waxaana loo cuskaday in la arkay xabaalo u samaysan sida siliibka ama mucatabka masiixiyiinta. xabaalaha ayaa waxay ku teedsan yihiin meel u dhow degmada Dhaymoole ee berbere koonfur ka xigta. daawade ciddaa tahay oo aad ogaataa waxay kaa dhigtaa inaad garato cidda kugu lidiga ah. dadkaaga ood raaci weydaana waxay keentaa dad kalena inaanad raacin.
balse dalkaaga ood ogaatid halka aad ugu jirto waxay ka wacan tahay dalkaaga oo lagugu dul aaso. daawade, dadka iyo dalka waxaad ugu jirtaa kaalin. haddii aad ka hagrato waa halka dhaxantu ay naga hayso, haddii aad hanatana waa hiil aan u baahnayn. daawade, waxyaabihii hore ay Soomaalidu caabudi jireen inahaas ayaa aan ka helay, balse adigu haddii aad haysid waxyaabo kale ama aad xogo ka haysid noogu reeb qaybta commentiga.